السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب بيج كحرن جمالير officially وين السلام يا جودهان دنيا على ميل بكجوتان وحيدين لي هاي دور ونكسن خميس ونكسن إن واق وينو بري واقي سينا جاردن الله أعلم هيدين لي هاي مركورة مركي حتى سووا تدوادا ميل بكجوتان إن تانكلا وحن رأيان كهذا ما تقضب كذا موضوع علما تانكلا روحا و تيك توك تيك توك waxaa iska leh nin ajaanib ah ama dadka ajaanibta hagaajisteen sida gaalada hagaajisteen kulli danta u hagaajisteen ayaa garanaya ruuxii waa un ganacsi wuxuu rabaa inuu faa'iido ka helo buu hagaajistay af walba ruuxii hagaajisto inuu faa'iido ka helo hagaajisanaa marka anaga faa'iidada si qaldan u raadinaynaa haddaan nahay Soomaali waxaan ku xiranay ama aan raacnay qaasatan gabdhaha waxay raaceen dad kale oo ajaanib ay raaceen marka waxaan leeyahay la soo noqdo oo bari maanta oo khamiis ah waxaa ka bilaabmay muxaadaro magaalada Nairobi waan joogno muxaadarooyin laga hadlayo maxaa la jiro dumarka iyo sida qaabka darna ay u isticmaalaan ama anshaxa xun ay u isticmaalaan baraha bulshada qaasatan midkan TikTok ay u isticmaalaan Instagram-ka ay u isticmaalaan Instagram-ka iyo TikTok ugu daran wala TikTok hadda magaciisa aad bulshada oo waxa qasaywaasa marka gabar walba Soomaali waxa kula dhashay wiil Soomaali ah waxa ku dhashay hooyo Soomaali ah waxa ku dhalay aabo Soomaali ah waxa ka dhalatay bulsho oo magac imaamus waa dunida kale hadii ay isqaabisid gabadha isku qaawanaysa TikTok isku qaawanaysa guriga marka tagto madax way ka dadanaysaa jirkeeda way ka dadanaysaa TikTok-na isku qaawanaysa marka su'aasha aan qabo waxa way TikTok hadii ay isqaabisid macnaheedu lagu ma arkay miya waxa lagu arkaa kali in aad isqaabisay marka TikTok ku jirto in lagu arkeen miya kula tahay macnaha marka hadii aad tahay kula tahay walaalay ka soo noqo kulay waa ogtahay in lagu arkayo laakiin waxa raadinayso waa like iyo view iyo waxa raadinayso iyo share inta maanta aqri miisaanka kuma korayana maanta way maantana faa'iidooyin oo ku helayso malahan waa aragtay TikTok aad markuu meel fiican marka qaar waxa maqlaysa TikTok waa laga jabsaday marka waxa u soo jeedinaa gabdhaha Soomaaliyeed walaalahayna oo nala dhasheen oo nala dhasheen oo na dhaleen oo waalidiinteena waxaan u soo jeedinayaa magaca imaamuska iyo sharafta iyo karaamada Soomaalida ay leedahay inay ilaaliyaan marka koowaad tan libaad inay xishmeeyaan bulshada ay ku dhex dhaqan yihiin ha noqo mid lagaga daydo wanaag lagaga daydo asturaad lagaga daydo dhaqan fiican lagaga daydo noqo insha Allah waa soo jeedinteeda intaas Soomaalida meel buu joogto waxa leeyahay gabar walba guriga ka soo baxayso hooyada dhashay ama aabbaheeda la socdo waxay ku dhaqmayso kulli waa laga warhayaa waxaana si bare ah maanta in hooyo aabba ay soo istaagaan TikTok ay iska duubaan haddana ay soo dhigaan waa hooyo aabba haddii hooyadii aabbihi ay soo duubeen ay soo dhigeen carruurtii maxay noqonayaan marka kulli carruurtuna meesha waalidku marin bay marayaan waxaan leeyahay Soomaali weyn meel buu joogtaan magacayna waxa haleynaa waa gaalana waxay u haleynaysaa in ay faasuqiyaan islaamka meel way joogan faasuq ay noqdaan sheedan waxa la jiray uu soo dhaartay uu ofinaa maalinta yawmal qiyaamah ama maalinta qiyaamaha maanta isku soo bixi doono inuu kaliya soo istaagi doono dad badan oo asabalay inuu wadada meesha soo istaagay anagana yaanan karab u noqon sheedan aan ka bari ahaan insha Allah sheedanka aan ka bari ahaano meel buu joogo TikTok aad u qasan ani kula hadlay maanta ugu dambeysay TikTok waana ka baxay dad man lagu markaa baraha bulshada intiisa kale insha Allah inaan isticmaalo isku dayaa si degan waliba marka waxaan leeyahay Soomaaliya meel buu joogtaan magaca maamuusta sharafta iyo diinta aan ilaalino waayo diintu wax ka weyn ma lahan haddii aan raacno ku dhaqanno wax walba iska hagaagayaan wax walba nabadda la helayaa caafimaadka la helayaa galgacaylka naxariista la helayaa inta waa la helayaa marka insha Allah Soomaali meel baa joogtaan balan ku dadaalno inaan ilaalino anshaxa iyo sharafta iyo midnimada Soomaalina ilaalino gabar walba is qaawanaysan ka soo noqo haddii ay is leedahay waxba kama soo gaaray ogow fanaaniin fara badan baa oo waxba ku keenaysa faa'iido ku keenaysa hortaas u soo ciyaaray isu soo qaabiyeen maantana aqrinkaaga horeeyaan waxay ku sugan Allahu a'lam dad fara badan waxaa jira maanta oo anshax xumo iyo dhaqan xumo la amaade maanta silac oo
laga yaabo inay si siracsan ay meelaha u jifan xanuunsan yihiin laga yaabo oo aadan ka warhaynin ama aad ka warhayso waxay ilaalisaa sharaftaada ilaasho marka koowaad marka sharaftaada ilaalisaa sharafta walaalkaada iyo hooyada iyo aabaha iyo dadka ilaalin kartaa ogow adig kaliya haddaad tahay isku malaynaysid bulsho idil baa kasoo jeeda qoom idil baa kasoo jeeda qoys idil baa kasoo jeeda intaba inaa ilaalisid way marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed meel waa joogtaan fariintan adeeg kugu socotaa gabar TikTok haddii aad isleedahay wax wanaagsan way wax walba oo la isticmaali karo wanaag loo isticmaali karo raxmaan loo isticmaali karo marka adiga waxa isku daydaa dhanka wanaagsan inaad ka isticmaashid dhanka wanaagsan oo adiga ka caawin kara wax ka tari kara isku dayna ka isticmaashid ma dhahay wuxuu yahay wanaag baa isticmaali kartaa dad badan baa sheekh wadaad far badan ku jira oo wanaaga soo bandhigaya sheekh Kenya baa ku jira ajir ahsan Allah siiyo dhankiisa wuxuu soo dhigaya waxyaalo wanaag soo dhigaya marka insha Allah aadna isku dayna wanaag soo dhigi kartid ani maanta wixii ka dambeeyay waxa wixii xumaan aan soo dhigay TikTok ama hees aan soo dhigay waan ka saaraa ama waxaan sameeynayaa waan soo TikTok ka baxay waan ku jiraa dhanka wanaagan kaga faa'iideysanaa insha Allah maanta wixii ka dambeeyay balse isku day aadna meel aan meesha taagan tahay wiiliga ruuxa taaba dhanka wanaagana ka isticmaal ka faa'iideysid way hal erey aad soo dhigtid maanta oo erey xun haduu yahay waxa ogaanaysaa in adduunyada meel uu qabsanayo ereygaas ka waran ereygaas wanaag oo meel walba qabsaday muxuu ajir ku soo kordhin karaa su'aasha ma isweydiis hal erey ama hal wacdi wanaag aad soo dhigtay oo hatta lagu sameeyay codka intii la isticmaalay intaas oo kuna ruux ay isticmaasho codkaada ama intaas oo kuna ruux ay daabatay dhageysatay ay ka faa'iido laga yaabo inta ruux intee ajir ugu socon kartaa ma isweydiis tanna laba jibaar saddex jibaar waxmaan ku soconaysa dii xumaan aad gudbiso marka insha Allah dadka TikTok la hadlaya maanta goolka TikTok Facebook YouTube ma soo dhigan waxa uu soo dhigay waxa waaye waxyaalaha baraha bulshada ku jiro hooyooyinka qadka soo galay waana dhasheen wiilashiina nahay gabdhiina nahay walaalihiina nahay waxaan leeyahay ayarko dhan walaagsan baa jirta wacdi gelin baa sameyn kartaa gabdhaha wacdi gelin kartaa barnaamijyo fara badan baa ka hadli kartaa waxa ka hadli kartaa maxaa la jira dhaqanka guurka ka hadli kartaa waxa ka hadli kartaa soo kalsoonida reerka ka hadli kartaa waxa ka hadli kartaa maxaa la jira jaceylka ka hadli kartaa waxa ka hadli kartaa diinta iyo akhlaaqda ka hadli kartaa barnaamijyo fara badan baa jira haddii aad ka hadashid oo dadkii kugu xirmayaan oo view iyo subscribe inta waa ku helaysid iyo like bal adna hooyo haddii aad ka mid tahay dadka ama gabdhaha aad ka mid tahay isku day waxa hore kaaga bixi ama xumaanta inaad dib uga soo laaban kartid insha Allah bidinlaahi kariim waa idin salaam meel waa joogtaan Allah idin wada sharfo Soomaali magac wanaagsan ayaan wadanaa qiimo badan adduunkana qiimo ku leh marka insha Allah balan dadaalno haddii aan Soomaali nahay aan dadaalno muuqaalada xuxunkuna iska dayna insha Allah nin walba isku dayo dhanka wanaagsan inuu isticmaali karo aysan ku jirin qadiyad qabiil iyo qarannimo oo si qaldan laga hadlaysan ku jirin laakiin wixii wanaag oo ay isleedahay haddii xitaa la dhageysto wax weyn bay tari kartaa bal intaas in aan laga dayin karo oo dadkan ay kaga faa'iideysan karaan isku day insha Allah shanta Soomaali waa salaam